kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada channelkan hore official hadaa ku cusubtahay ku cunaa subscribe share comment like haddii naga joogtana waa ku maasan daawashadaada booqashadii beerta race kulanka bahda sports ee gobolka bari waxaan la kulanay dhalinyarada sports ee gobolka bari iyo macallinkooda Maxamed Ismaaciil Cunay waxaan weydiinaynaa su'aalo dhowr oo ku saabsan bahda sports iyo macallinkiina idinko dhan halka kula kulmo kusoo dhawaada channelkeena hore official macallin بسم الله الرحمن الرحيم وكدوناهي هور official adigana aad baan ku salaameynaa anagana waxa iyaga farxad bay noo tahay inaynu meeshaan isku aragno kulay sida muuqata inta badan bulshada reer Boosod way joogtaa maadaama ay maalin fasaxa oo dadku fasax iska wada yihiin ay ahayd magaaladana xilli kuleyla lagu jiro meeshana ay meel aad loo diyaariyay oo nasashada ku haboon ay tahay dadka inta badan waxay isaga yimaadeen inay iska nastaaneen waqti iska qaataneen aniga iyo asxaabteeduna meeshaan aanu joognay oo aanu waqti iska qaadanayna marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay soo dhaw waana mahadsantahay aad baa maasata macallin waxaan ku soo dhaweynayaa macallinik aad baa ku salaamayaa hore official waxaan halkan waqti wada qaadanay Anas Jafeys iyo macallinka kooxda waqti nasasho ah aad baan ku salaamayaa channelkaagan soo dhaweynaya aad baa mahadsantahay kaftaano waxaan ku soo dhaweynayaa Anas Jafeys soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan idin salaamayaa dhammaan taageerayaasha Bari FC inta kadib waxaan aad u salaamayaa bahda channelka hore official ku soo dhawaada waxaan leeyahay beerta race waa meel dalxiis ku wacan ما شاء الله عاد بان سلام يا جماعه وناكسن اني halka ku wada qaadana farxad macallinkaygi Maxamed Ismaaciil Cunay iyo kabtankaygi Maxamed Aad Xasan Ilig soo dhawaada aad ma haysteen dhalinyaro mar labaad mar saddexaad baan soo dhaweynayaa farxad gaar ay tahay si kadisa haddaan idin weydiiyo su'aalo ku saabsan bahda sports anoo ka bilaabay macallinka kooxda Bari FC seen wada ognahayba maalmihii u dambeeyay Puntland xasoo booqanay naadiyo ka imaanaya gobolada Soomaaliya haba u dambeeyay kii hadda ka yimid Xamar oo Muqdisho City qalab marka macallin bahda sportska ka waran gobolka Bari saan ognahay kale Bari ina sabab ban dareemay marka bal adoo faahfaahin dheer inaga siinay xaaladda gobolka sportska Bari naadiyada soo booqanay hagee ma garaysaa سؤال معقولة وقتيgeedana joogta aad baa mar labaad iyo mar saddexaad baa aad ugu mahadsantahay runtii waa run oo koox baa timi hadda MCC oo ah kooxda difaacaneysay ama sanad ku guuleysatay horyaalka Soomaaliya garow ka soo degtay runtii koox badan baa ka jira Puntland oo 9 kooxood baa heerka koowaad u diiwaan gashan Boosaasona 2 kooxood baa ka dhisan waqtigu sida aad ogtihiin waa qaboobe iyo kuleyle waqtigan Boosaas waqti kuleyle ay ku jiraa bulshadeeda inta badneed wax ku kala maqan tahay gobolada oo dad badan ma joogaaneen taamarkii aan ka nimaano koox baa balansatay kooxda MCC oo u yeertay oo casuntay kooxda horseed ee ciidamada qalabka sida dawladda Puntland shalay galabna la ciyaartay marka waxa weeye kooxdu markii ay koox balansato waa in lagu ixtiraamaa cidii balansatay waana in ay ciyaarta ay ugu yeeratay la ciyaarta iyadaana mas'uuliyadeeda iyo cid ay la ciyaareyso iyo barnaamijkeeda iyada ku farkareynaysa marka anagu qayb kama aanu ahayn hadaanu nahay kooxda Bari FC balansiga kooxdan qayb kama aanu ahayn lama aanu xiriirin insha Allah biidnillaahi kariim hadii waqtigu uu isbedelo oo tomnaad iyo wixii loo gaaro waanu ciyaari doonaa anaguna ciyaar saaxiibtinimo goboladana kooxa waan uga yeeri doonaa anaguna waa bixi doonaa safaro hase yeeshee safarkan ee MCC ku timi Puntland anoo qayb kama ahayn hase yeeshee ka sport ahaan waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada Puntland kalena ciyaar bay dheeleen oo kulay waxay ku dhamaatay sida igu maqaala hal iyo eber guush ku raacday waan ugu hambalyeynaa aad baa mahadsantahay macallin mar labaad iyo mar saddexaad bahda sportska gobolka Bari sino ognahay waa magaalada Magarasay sport ahaan loo fiiriyo Boosaas uu dhalinyarada badan ama Magarasay sportka xoog ka jiro marka maadaama ay timi hadda qardho kale ma laga yaabaa in idinta boos ahaan ku qabataan ciyaar saaxiibtimo la dhashay
والله sida aan sheegay anagu ciyaarahan qayb kama nihin insha Allah bidnillaahi kariim waqtigayaga ayaanu anaguna koox balansan doonaa ama aanu aadi doonaa laakiin ciyaarahan hadda dhacaya oo shalayna dhacay maantana dhacaya anagu qayb kama nihin de kooxdu magaaladu waa magaalo weyn kooxdu way soo gudbi kadhaa dabcan kooxo kale inay la ciyaaraan way dhici kadhaa way iman kadhaa haddii doonto si dalxiis ah isaga iman kadhaa maadaama ay magaalo xeebeed tahay oo ay magaalo dalxiiska ku habboon tahay laakiin anagu ka ciyaar ahaan ka koox ahaan wax arina ama maaragtay qorshe ah oo aanu qayb ka nahay ma jirto midda labaad waxa weeye sportska Puntland meel wanaagsan buu marayaa sanawaadkii u dambeeyayna tallaabo buu soo qaaday horyaal baa la qabtay 9 kooxood baa la jaangooyay hadda bil ka hor waxa la soo saaray warqado oo la leeyahay kooxihii waa in dib loo habayaa oo ay mar labaad isreebreeb dib ugu laabtaaneen walow aan isreebreebkaas aan ahayn isreebreeb lagu wada qanacsan yahay oo de sabab loo qabanayo inay jirin waxana moodaa in xiriirka kubadda cagta Puntland ay qaabka kubadda u socoto iyo aqoonta kubadda inay xogaa ka yara aradan yihiin baa moodaa anagu waxna kooxda horyaalkii hore ee Puntland qaaday misana waxaan qayb ka ahayn warqadii ay soo saarday oo ay leedahiin isreebreeb waa ina aadaaneen runtii warqad baan ku celinay bal inay noo sharaxaan sababta aan isreebreeb ku aadi karno ma koobkii aan qabateen baa wax kama jiraan ah ma wixii shaqo la soo qabtay waa wax kama jiraan ah koob qaaday oo misana la leeyahay waa inaad dib aad isreebreeb u aadaa runtii de waxaan u garanayno maaha hase yeeshee waxaan u daynaynaa cidii ay ka timi taas weeye haddii aan u soo laabto safarka hadda ay MCC ku timi geyga Puntland shal ciyaar baa dhacday runtii dadku way kala aragti duwan yihiin ka macallin ahaan aniga ciyaartaas waxaan u arkay inay xiriirka Puntland iyo kooxaha Puntland iyo kooxdii la ciyaaraysay guud ahaan inay wax ceeb ku ahayd baan dareemaya sababtana waa idin sheegaya waxa weeyaan koox balansatay MCC iyo horseed baa balamay wax fiican bay ahayd inay kooxu isbooqdaan in la isbarto la isu tago wax meesha ku jira hase yeeshee kooxdii horseed ee balansatay kooxda وكوح لا يقان oo iskeediye leh oo ciyaartoy u diiwaan gashan yahay oo sida ay sheeganeen mushaharaad bixiya oo sida ay dhowr jeer macallinku ka sanqariyay saaxiibkay macallin Abdulqaadir oo aan salaamayo uu ka sanqariyay dhowr jeer kooxda ay gunooyin bixiso ama ay bixiso mushaharaad hadana 3 ciyaartoy baa safkii kooxda aan ku naqeynay ka ciyaaray 3 ciyaartoy kaliya kulay garoonku geed lagu ka bado male qof walbina kooxdu ka soo jeeday cid uu diiwaan gashan yahay xiriirka kubadda cagta waxa uu rikoor gareysan waa wax la isla yaqaan ilaa 10 ciyaartoy ilaa 7 ciyaartoy 8 ciyaartoy oo garoonka ku jiray baa waxay u diiwaan gashan yihiin koox kale haddii aan ka soo qaadano kooxda Garowe City ma 4 ciyaartoy 3 ciyaartoy ka ciyaaray kooxda Bari FC 2 ciyaartoy ka ciyaaray kooxda Boosaaso FC ciyaartoy 1 ciyaartoy ka ciyaaray SPC sidoo kale ciyaartoy ka ciyaaray marka anigana runtii way jiraan dad badan oo iga badiyo kubadda cagta iyo sharciyeeda hase yeeshee habdhaqan iyo sumad aan ku arki jiray in kilaab cid ka soo qaato ma aha waxaan arki jirnay ciyaartoy kilaab wad kala soo wareegay ka laakiin process buu leeyahay waa inaad ciyaartoyga la soo wareegtaa si fashar ay kula soo wareegtaa waa inaad bulshada u soo bandhigtaa oo ciyaartoygaas kooxdaas u qaadatay oo kooxdaas u wareegay ay tahay waa inuu markaa kadib kooxda ciyaartoygu matalaa laakiin ciyaar baan koox balansaday misana kooxii waxaan oran karnaa hadda ciyaartii shalay Puntland iyo MCC baa ciyaaray ma oran karno laba kooxood baa ciyaaray Puntland iyo MCC inay ciyaareen baan ila tahay aniga sida ay meesha sawirka ka muuqday waxa kale oo arrin aad loo la yaabo xiriirkii kubadda cagta gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta macallin Maxamed Ciiro iyo guddigii iyo gudoomiyihii farsamada iyo tartamada Mustafa Majacase ciyaarta goob joog bi ka hayeen warqadihii ciyaartoyga kale ee heshiisyada ugu la jireen kooxaha kale ee Puntland xafiisyadooda khaanadaha xafiisyadooda ku jiraan iyaguna waxay isla soo sawireen iyagoo kilaab kala metelaya sifa sharci aan ugu wareegin aan wax aan cid soo bandhigin aan wax ogeysiis cid jirin sidii waagii hore bariisamaadkii Puntland markay soo mareysay wax aan qorsheysnayn iskaale iyo ciyaar kaali galabta igu adkay kooxdan igu la adkay barnaamij aan sumad lahayn oo jaha lahayn oo meel loo socdo iyo meel laga yimi aan lahayn oo runtii ceeb ah baa meesha ka muuqday kooxdu markii ay koox balansato waa inay kooxdu iyadu wajahdaa 3 sababood buu waxa weeyaan khalad bay ku tahay
sababta koowaad kooxdan hadda ciyaartooy baa u diiwaan gashanaa oo da'yara oo kubaddoodu fiican tahay oo mustaqbal iyo future kubadda ka raba maalintii kooxdu cid la dheelayso hadduunu dheeli karin sidee buu ciyaartooygaasi ciyaartooy usii ahaan karaa ma sii ahaan karo waxaa suuragal ah kumanaan dhalinyara oo hibe leh oo ku filan lahaa ciyaarta shalay inay ciyaaraaneen inay saaxadaba iskaga baxaaneen waayo maalintii ay kooxdu rag u baahato kooxa kale ka doonanaysaa marka taas horta waa qodob oo ciyaartooygiiba ceeb ku tahay waxba ma tihid weeyaan ciyaartooygii haddii aad kooxda u diiwaan gashanayd haddii aad kooxda muddo usoo saburtay haddii aad waqti soo qaadatay annagoo og kubadda puntland inay runtii dhalinyaradu ku joogaaneen juhdi iyo dadaal ay iyagu bixiyaan bay ku joogaaneen waayo mushaahar lama siiyo kuna lama siiyo kabahooda iyagaa gata dharkooda iyagaa gata kooxaha puntland inta badan ciyaartooygii sidaa kooxda ugu soo saburay waqtigana soo geliyey in la dhaho maanta waxba garamaysee bari FC baan waxaan ka doonanaynaa ciyaartooy booskaaga ka ciyaari kara waxaan u arkaa inay niyad jab ku tahay ciyaartooyga kooxaha marka waxaan ka digayaa inay wixii shalay ay horseed samaysay ayna noqon wax looga daydo way kooxdu ku kalsoonaato ciyaartooyga u diiwaan gashan waqtina siiso qodobka labaad waxa weeye xiriirka kubadda cagta Puntland ceeb bay ku tahay waxbaan diiwaan gelinay kooxaha noo rikoor garaysan kooxaha noo listi garaysan oo ciyaartooy baa listi ku jira misana ma lihin authority iyo ability aan ku oran lahayn kooxdan ka mid halka joog kooxdan la jirtaa ma lihin iyaga ruuxooda ceeb bay ku tahay qodobka saddexaad oo isaguna cajaa'ibka waxa weeye inaan kooxii confidence iyo kalsooni ay ciyaartooyga ku haysan kara aan lahayn marka ciyaar macna leh oo martabada ciyaartii shalay ay joogto ciyaartooygu in cid doono aadi karo iyaduna waxay ka tahay meel ka dhac weyn bay tahay marka isku soo wada duub waxaan leenahay Puntland waa inay u bislaataa xeerka kubadda cagta waa inay u bislaataa waana in meesha dad aqoon u leh wixii la helaa waqtigii wasaaraddu maamuleysay sportiga Puntland wax la yaqaan buu ahaa meel la yaqaan buu noo socday hadda xiriir baan noloo keenay xiriirow maxaa ka shaqeynaysaa wasaaradii baa intii doonto ka wanaagsanayd ayada ka aqoon badnayd ayada dad tayale oo dawladii hore la soo shaqeeyay baa joogay dadka hadda jooga waxa ma moodaa inay yihiin dad ku soo sasay kubadda war ma awoodi waayeen inay bal kooxdan war kooxda adaa ballansaday la dheel xataa ma awoodi karaan marka isku soo wada duub dhaliisha ugu weyn oo jiddan waxa weeye Puntland la isma dhaliili karo haddii radaan xiriirka wax ka sheegno ama kooxdaas khaladka ay gashay aanu sheegno waxa loo haystaa inaanu nacabnahay kooxda inaa xiriirka nacbahay maya ma sidaas haddii ay kooxdu xagal daacdo ay wax ka khaldamaaneen waa la sheegayaa wax weyn baa khaldamay shalay wax ceeb ku ah Puntland oo dhan baa dhacay wax sportiga Puntland ceeb ku ah baa dhacay wax xiriirka ceeb ku ah baa dhacay wasaaradda waan mar labaad baan ku celinayaa inay arintan ka madax banaaneed baan dareemayaa kumana arag mas'uuliyiin wasaaradda ka socday oo meesha joogay laakiin waxa mar labaad iyo mar saddexaad adkeenayaa kubadda in la ciyaaro in sharciga la yaqaan baa ka horeysa waa inuu sharcigu shaqeeyaa waana mahadsantahay sportska aan la kulanay intaan barnaamij lamada ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadiino